Bismillahirrahmanirrahiim. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu calaa sayyidina Maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasallam. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada kaalinka waxbarasho ee Solution. Haddii aad nagu cusub tahay, ha hilmaamin inaad janaalka dhahay subscribe, sidoo kalena aa like dhahay si uu dad badan u gaaro, aadna la wadaagto asxaabtaada iyo saaxiibadaada. Asxaabi insha Allah hadduu Allah awood raali ka noqdo waxaa xalin doonaa imtixaanka maadada Englishka fasalka 8aad sanad dugsiyeedkii tagay 2020-2021 insha Allah. Imtixaanka ardayda qaybta hore waxaa saaran 40 dhibcood. Waxaa lagu sheegay sheekadaas kadib su'aalaha laga bixiyay. Marka hore sheekada waa inaad akhrisataa, marka fahanti kadibna su'aalaha inaad ka jawaabto waaye. Qaybta koowaad waa gabageli. Ardayda su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay Quraanka waxaa la soo dejiyay bisha. Ardayda su'aashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa waa xarafka ba oo ah bisha Ramadaan. Ardayda su'aasha labaad jawaabteeda waxaa waaye yuu waajib ku yahay inta lagu guda jiro bisha Ramadaan inuu soomo. Ardayda su'aasha labaad jawaabteeda waxaa waaye xarafka a oo ah xarafka aan dhahe oo ah qof walba oo muslim ah, lab ama dhidig wuxuu doona ahaado. Ardayda su'aasha saddexaad waxaa weeyaan intee in la eg ayaa waqtiga soonku yahay maalintii. Arday su'aashaasi jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah markay soo baxdo qoraxda ama fajirka markuu soo baxo ilaa iyo ay ka dhacdo qoraxda. Halaasoo qofka soo noqonaa fajirka labaad markuu soo dhasho ilaa ay qoraxda ka dhacdo waa xarafka ba. Ardayda su'aasha afraad waxaa lagu dhahay Ramadaanku waa bisha 9aad ee bilaha Islaamka. Ardayda su'aasha afraad jawaabteedu waa xarafka a oo ah Ramadaanku waa bisha 9aad ee bilaha Islaamka ama Islamic year. Ardayda su'aasha afraad jawaabteedu waa xarafka e oo ah bisha 9aad. Ardayda u soo gudubna su'aasha shanaad. Su'aasha shanaad arday waxay ku leedahay bisha Ramadaan ama Ramadaanka Ramadaanku waa rukniga afraad ee 5 tiir ee Islaamka. Ramadaanku waa rukniga afraad ee 5 meesha ka maqan tiir ka maqan. Jawaabteedu waxay noqonaysaa arday xarafka su'aashana jawaabteedu waa xarafka ba oo ah tiir. Su'aasha u soo gudubna ardayay su'aasha lixaad u soo gudubno. Su'aasha lixaad arday waxay ku leedahay muslimiintu waxay soomaan bisha Ramadaan sababtoo ah maxaa yeelay. Jawaabteeda arday waxay noqonaysaa waa xarafka e oo ah waa bil muhiim ah. Su'aasha toddobaad u gudubna arday. Su'aasha toddobaad waxay ku leedahay waa kuwii kooxaha muslimiinta ah ee laga reebay soonka Ramadaanka. Waa kuwii dadka muslimiinta ah ama group ka tirsan group-yada muslimiinta ah oo calashan laga reebay in ay bisha Ramadaan ay soomaan. Arday su'aasha toddobaad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka d oo ah dadka safarka ah iyo kuwa xanuunsan. Waxaa la siiyay ruqsad oo ah
in ay soonka ka tagaan. Qofka musaafirka khiyaar uu leeyahay, sidoo kale qofka xanuunsanna waa la mid. Ruqsad uu haystaa oo soonka ugu tagi karo, laakiin wuu u gudaa sida la ogsoon yahay. Arday aan soo gudubna su'aasha 8aad. Su'aasha 8aad waxay ku leedahay arday qofka muslimka ah ee sooman ajirkiisu uu ku leeyahay Alle xaggiisa intee uu la egyahay, oo Ilaahay muxuu ku abaalmarinaa qofka muslimka ee saa'imka ah. Arday jawaabteedu su'aashan waxay noqonaysaa waa xarafka oo ah Alle wuxuu ku abaalmarinayaa janno oo ku abaalmarinaa. Arday aan soo gudubna su'aasha 9aad. Su'aasha 9aad arday waxa weeyaan su'aasha 9aad waa maxay cuntada la doorbido in lagu afuro? Su'aasha 9aad waa maxay cuntada la doorbido ama fiican oo sunnada ah in lagu afuro? Arday su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah timir iyo biyo. Biyo iyo timir in lagu afuro iyadoo lagu dayanayo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. Arday su'aasha 11aad. Arday su'aasha 11aad waxay ku leedahay salaado taraawiixdu waa salaad caynkee ah? Salaad taraawiixdu waa salaad waxay ka mid tahay salaadaha sunnooyinka ah ama isbishalka ah ay ka mid tahay micnaha, oo qof walba waajib ma aha micnaha. Salaada taraawiixda waa salaad sunno ah. Jawaabteedu waxay noqonaysaa marka xarafka su'aasha 11aad jawaabteedu waa xarafka ba oo ah salaado isbishal ah ama sunno ah. Su'aasha 12aad arday waxaa waaye dhamaadka bisha Ramadaan muslimiintu waxay bixiyaan. Arday su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka oo ah zako. Zakaatul fitri si kala dhahayo ayay muslimiinta bixiyaan, zakada afurka. Su'aasha 13aad haddii aan usoo gudubno arday waxay noqonaysaa su'aasha 11aad waxaa lagu weydiiyey arday su'aal maa soo booday. 10aad waa soo sheegnay, 11aad sidoo kale, 12aadna waa sheegnay, 13aad aan marowna saxanahay. Su'aasha 13aad waxay noqonaysaa waxaa lagu yiri qofkii si ula kac ah u fura ama soonka ugu fura galmo, ama sidoo kale si kale aan u dhahno qofkii si ula kac ah u sameeyo jimaac asagoo sooman oo maalin Ramadaan ay tahay. Waa inuu soomaa ama waa inuu ku soo celiyaa. Waxaa laga rabaa qofkaasi waxay noqonaysaa si uu dembiga ugu galo oo ugu kafaaro qaato. Waxay noqonaysaa inuu soomo oo soonka dib ugu soo celiyo. 13aad jawaabteedu waa xarafka D oo ah 2 bil oo is-xigxigta. Qofkii si bareer ah maalin Ramadaan ay tahay jimaac u sameeyo arday qofkaasi waxaa laga rabaa inuu Ramadaankii ama bishii soonqaad uu ku soo celiyo 2 bilood oo xiriirta oo aan wax la dhex gelinaynin. 59 bir hadduu soomo hal biri ka tagaataa qofkaas waxaa waaye waa soo cusboonaysiinaa 2 bilood oo xiriirta laga rabaa inuu soomo. Arday aan u gudubna su'aasha 14. Su'aasha 13aad jawaabteedu waxay noqotay xarafka D. Waa ka gudubnay su'aasha 14aad aan u gudubno. Su'aasha 14aad arday waxaa lagu weydiiyey
tobanka dambe ee bisha Ramadaan dadka qaar ka mid ah waxay joogaan ama ay ku ictikaafaan. Jawaabta waxaa waaye arday xarafka C oo ah masjid. Masaajidka lagu ictikaafaa tobanka beri ugu dambeyso ee bisha Ramadaan. Su'aasha 15aad arday waxaa waaye bisha Ramadaan kadib dadka oo muslimiinta ah waxay u dabaaldegaan. Su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa arday 15aad xarafka ba oo ah Eid al-Fitr. Eidul Fidriga ay u dabaaldegaan ama ciida soonfurka ah. Su'aasha arday 16aad inta lagu guda jiro su'aasha 16aad waxaa weeyaan inta lagu guda jiro maalmaha soomka ah qofka muslimka ah jawaabteeda waxay noqonay waxyaalaha uusan qaadan waxaa ka mid ah oo ma qaato ama ma isticmaalo inta maalmaha Ramadaanka lagu guda jiro cunto. Jawaabteedu waxay noqonaysaa marka xarafka D ay noqonaysaa. Su'aasha 17aad afurka waxaa ka dambeeya oo ku xiga arday. Su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa waa xarafka E oo ah salaada cishaha. Haddii mar la afuro amalka ku xiga waxaa weeyaan in salaada cishaha la dugto. Su'aasha 18aad erayga adoon micnihiisa waxaa weeyaan jawaabtu waxay noqonaysaa arday waa xarafka C oo ah in dembiga laga toobad keeno. Su'aasha 19aad arday waxaa lagu yiri mid ka mid ah waxyaalahan soo socda wuxuu jabiyaa soonka. Arday su'aasha jawaabteeda waxaa weeyaan waa xarafka D oo ah in sigaar la cabo. Arday su'aasha 20aad faa'iidooyinka uu leeyahay soomida ama soomka faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah Ilaahay. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka B oo ah Allah wuxuu ku dhaafaa dembiyadaada. Arday qaybta koowaad halaas ku soo gabeynina insha Allah qaybta labaadna video kale inta ka soo sameynayna. Daawashadiina waad ku mahadsantihiin.